wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdullaahi Xaaji Xasan Manuur ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha 9aad 2022 gudoomiyaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ahna duqa degmada u magacaabay Cusmaan Muuse Maxamed. Mas'uulka la soo magacaabay ayaa lagu xasuustaa diiwaan wanaagsan oo ay ugu horeyso sidii argagixisada dhibaato ba'an ku hayay shacabka magaalada Marka ugu dulqaaday sanadihii uu ahaa taliyaha ururka 14aad guutada 14 Oktoobar, waxaana inta badan uu la dagaalamay dagaalada kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo ay shacabka magaalada Marka dhibaato badan ku qabeen muddo sanado ah. Kabtan Cusmaan Muuse ayaa noqon doona duqa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose Marka, sida ay shaacisay wareegto ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha cusub waxaa horyaala shaqooyin adag oo ay ugu horeyso sidii bulshada magaalada Marka loogu saari lahaa go'doonka argagixisada ee muddo sanado ah saaran, wax ka qabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo kuwa Al-Shabaab guryahooda ka soo barakiciyeen ee magaalada ku nool. Kabtan Cusmaan Muuse gudoomiyaha cusub ayaa buuxin doona booskii uu ka shahiiday Allah u naxariistay mujaahid haliyey duqii Marka marxuum Cabdullaahi Cali Axmed Waafow. Si la mid ah gudoomiyaha cusub waxaa loogu fadhiyaa in uu baaritaano ku sameeyo qaraxii 27 Julaayo ee sanadkan ka dhacay afaafka hore ee xarunta maamulka, kaas oo ay ku geeriyoodeen haldoorro fara badan. Taariikhdiisa kooban, gudoomiyaha cusub ee magaalada Marka xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Cusmaan Muuse ayaa ahaa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax badan ka soo shaqeeyay xagga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kaas oo ilaa darajo sare ka gaaray. Dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan inuu yahay shakhsi samata bixin kara bulshada magaalada Marka oo waqtigan wajahaya xaalado kala duwan. Si guud, bulshada magaalada Marka ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay magacaabista cusub oo ay maanta sameysay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ways Muumin Xasan, Ways OK, warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gobolka Shabeellaha Hoose.